waxaan joognaa magaalada Baardheere maanta meeshan waxaa isugu yimid culumaa u diin iyo odayaal dhaqameedyo iyo gudiyada kala duwan ee magaalada qaybaha horumarinta kulankanaga maanta wuxuu ku saabsan yahay la wadaagida aan la wadaagayna bulshada caqabada iyo abaarta guud ee dalka maanta camimtay gaar ahaan gobolka inay u sii daran tahay arintaas ayada ayaan warbixino kala duwan insha Allah ta'ala inay odayaasha idin la wadaagaan ay insha Allah ta'ala u diyaarsan yihiin maanta una fadhiyaan waa caqabad rabbaani ah oo Ilaahay uu keenay subhanahu wa ta'ala marka koobaad waxaan soo dardaarmaynaa Allah tabaaraka wa ta'ala inaan u laabano inaan iscafiyo umada dhibaataysan qof walba wuxuu tari lahaa uu taro mid labaadna Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa maanta caqabada jirto oo camimtay dad iyo dunyaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga dulqaado haddana waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala Sheekh Abdullaahi oo kalmadiisa dhihi doona kana warbixin doona caqabada jirta iyo culeysyada بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين walaalka intuu sheegay waxaan ku darayaa odayaashana inta badan hadalka qaadan doonto ayaa qaadan doono sidaad ogtihiin walaalaha muslimiinta ashkhaastooda iyo hay-adkooda iyo mu'asasaadkooda inaan la wadaagno duruufta iyo dhibaatada ka jirto wadanka gaar ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere walaalayaal saad la socotaan sanadihii ama roobabkii soo dhaafay xiliyadoodii inta badan ma ayna diin ayadoo sida ay jirtay oo dadku iska duruufaysan iyo xooluhu ayna daaqsaas haysan biyuuna yar yihiin ayaa hadana roobkii la sugayay Ilaahay qadartii waa baaqday wax yar oo meelaha qaarkood daruura markii laga reebo taasi waxay keentay waxyaalihii jiray inay sii aadaan Ilaahay baan weydiisanaynaa inuu naga qaado thumma waxa la rabaa dadka walaalaha ah oo muslimiinta ah oo Soomaalida iyo qeyrkoodba wixii ay tari karaan walaalood inay taraan وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاون قفك كلو مسلم كوحو تري كرين وترو ذاتك مؤسساتك أي دولد وهو الرئيسو ومسؤوليات سي عامة يتعاون يسانا إلى يسيقوني أما سيقود السحل ساران قودها ودنك قارهان نميشي هاد ودواتود ودرانتهاي هدي أن كسو دوادو باهيدا إيه دواتود سيوكلا درانتهاي waxaa hadda aad ugu daran dadka biyihii baa ka go'ay oo meelihii hadda ay xoolaha la aadeen inta badan biyihii waa ka go'een haddana waxay galeen hayaan iyo inay meelo kale sii aadaan oo biyana ayna saas ka jirin meelaha hadda la leeyahay la aado oo dadku aadayaan webiga ayaa ugu roon webigana badanaa roobabkii iyo maaragtay way gafiyeen waxyaalihii daaqa ahaa dadkii marka qaar magaalooyinka ku soo qulqulayo iyo dadkii miyiga ahaa oo magaaladii soo galayo iyo dadkii tuulada ahaa oo magaalooyinka waaweyn soo galayo saasay u bateen meelihii la tagayna maaragtay oon iyo waa ka jiro marka Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala dadka deeqi karo warkaan rabna inaan idinla wadaagno sidaas weeye inaad maaragtay walaalihiin caawisaan waxaana ugu daran oonka iyo baahida dadka hayso labadaas ugu daran intaasaan dhihi lahaa maanta halkaan waxa isugu yimid odayaasha deegaanka Baardheere waxaan rabnaa inaan ka hadalna laba qodob warbixin iyo xaaladda abaartu meesha ay ka maraysa gobolka Gedo qaasatan degmada Baardheere iyo qodobka labaad oo ah baaq aan u dirayna ama jaaliyadaha ama dawladda ama maartay maamul goboleedyada ama dadka muxsiniinta Ilaahay wax siiyay warbixinta haddii aan ku hormarno abaartu si guud waxaan la qabnaa Soomaaliya oo dhan ama Kenya ama Ethiopia waxaad moodaa inaan ugu sii darannahay gobolka Gedo markii la yiraahdo gobolku roob kama diin marka laga reebo meelo yar oo daruuro madmadow keen ay ka da'ayn maanta meel kasta oo gobolka Gedo kamid ah biyo dhaamin baa ka socota waxaan joognaa bishii koobaad oo dayrta xilliga dayrtaan joognaa dhulka biyaha laga dhaaminaya faafaxdhoon baa hadda biyo laga dhaaminaya galiley baa laga dhaaminaya daad shimbir baa laga dhaaminaya buusaar iyo caws qurun baa laga dhaaminaya
daawa laga dhaaminayaa oon odayaasha xiriiraynay garbaarey iyo dhulkan baa laga dhaaminayaa 7 degmo oo gobolka iyo tuulooyinkoodoo dhan biyo dhaamintii meel hadda waa barwaaqo la leeyahay ma jirto oo maaragtaaye biyo dhaamintu way ka jirtaa waxaana yeelaya daruuri yar oo la helayna ma aysan awoodin warihii inay biyo geliyaan oo biyo la hela ceelasha riigga oo laga cabbi jiray laftooda hadduusan roob di'in oo dhulku biyo aysan cabbin way biyo yarayeen laftooda abaartu marka si guud bay u jirtaa xoolihii rajadoodii hadda way nagu yaraatay waxa hadda maanteer aan ka hadlayno oo aan ka gurmanayno waa dadkii sidii lagu badbaadin lahaa dadkana dee maanteer xoolihii dhammaasho haddii ay bilaabeen magaalooyinkii bay soo aadi magaaladii hadday soo aadaanna rafaad kale iyo maaragtaaye waxqabad la'aan iyo shudda imaanaysa marka waxa macquulka waxaa waye intaanan magaalooyinkii la imaanin dadka in loo gurmado oo tuulooyinkii iyo deegaamadii ay ka soo barakici lahayeen lagu celiya noocaasay noqonaysa hadda baardheere 3 beri hadda waxaana soo gaarahayay dad soo guuray oo hayaan ah dadkaasi waxay ka soo guurayaan tuulooyinkan cadaadgeri xabiibayaal abaqtaag meesha la yidhaha raaxoole magaalada baardheere hadda odayaasha iyo maaragtaaye rag guddiye ah isku day baa la sameeyey oo kiilooyin iyo waxbaa loo ururiyey kollayda miidiyahana waa lagu arki doonaa dadkaas rafaad fara badan bay qabaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa abaartu inuu naga bixiyo marka waxaan dhihi lahayn dadku ilaahay wax siiyey oo muxsiniinta ah ama ganacsatada ama maaragtaaye hay-adaha maaragtaaye ama NGO-yada ama hay-adaha caadiga oo kale in maaragtaaye arrintaas ayada ay fiiriyaan dowladda kaleeto iyo maamul goboleedyada iyo dhammaantood dhib culus baa jira oo indhaha laga qarsan karin waxaan marka codsan lahayn ilaahay baa wax badbaadiyey ee hadda xoolihii waa laga quustay dadku in loo gurmado haddii dee dadka aan loo gurmaninna nin kasta oo mas-uul ah wuxuu xukumuu rabaa dadkii haddii maaragtaaye uu gaajo u dhammaanaya dadna hoteellada ay ku saaxanayaan $2,000 arrintaa ayada waa arrin nasiib darro ah marka waxaan dhihi lahayn arrintaa ayada in laga gurmado maaragtaaye nin wax haysta iyo nin maamul haya oo mas-uuliyad haya intaba waxaan ka codsan lahayn dadkan in loo gurmado si guud loogu gurmado aanan la sugin inay dariiqyada dawarsadaan oo magaalada soo galaan xal hadda anigu nin baa ila baryay wuxuu yiri geedi baan nahay wuxuu degan yahay reerkiisa degan yahay faafaxdhoon meel ka sokayso waxaan geedi wahay buu yiri meesha la yiraahdaa buulo fullay waa 200 kilomitir muxuu geyn marka ninka haddii uu xoolo kaxeeya wuxuu yiri nusaday ii tagaan oo ii badbaadaan waa naxariis weyn buu yiri lafteeda waxaan ognahay daruuro un baa ku daaya madow haddii laga helana biyo ma laha maanta meesha lagu badbaadi karo waa meel webi mara marka si guud waxaan dhihi lahayn dadku ilaahay wax siiyey dadka jaaliyadaha oo maaragtay gobolka u dhashay in maaragtaaye la gurmado oo la dhaqdhaqaaqo weli nama soo marin xataa 2011 ma aanan arag abaar noocan oo kale ari ilo waa laga guuray geelna meeshuu ku bixi jiray jubbooyinka bay ahayd jubbooyinkana waa naga dareeyeen waa abaar sanadkan marka hadda xoolo wuxuu ilaahay bixiye mooyee wax baxaya ima muuqdaan waxaan marka dhihi lahaa dadku ha loo gurmado oo dadka si lagu badbaadin lahaa ha loo gurmado aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ma haduu suuqay wuxuu isku qoyni kulli odayaashii oo ururiyay warbixinta si tafasirin sinsiya وين معنا مقالة وريالشة وماضية أبطونة ده بولشة وجانشي ومنين هرتا ولا ولا معنا عنده ومنين القرآن دمدون وكن دمدون وين كل اسمي سيهرب لسينك شيء كل إلهي شيني الحمد لله أبارتون إلهية نوغالة روال بناء ولا خفصيين ولا منتراومة لكن إلهي وتعالى الله نسي مركز كدي بعد رواه كل سنتي كل سيد ورا ولا سيد شيء إن بركة عيار أو إن تاسية إلا حالي بيها قلنا صدق كريت أو لا إلا ستحدين أو كان خورين تدان بوجين مركز أولئك كي مركز دقمتها فولي ونقطة كرنا سومالي ضدنا ضد كولين قوام ونقولنا لكن كارهان أرن تاس مركز وين كترجمة عينه مساكينتا أو معلوش اللي أو هلا قدام مارين أو بينن هاي السنة نفسد تيدي وبتبهذا باهم
aawidii markii haysan waayni haddii una jaabkana karaankana dadnimadaana awoodana wali uu sii korona siina walaayin tabaru waayni nasla haduna singisheena miiriya una saasingisheegahay qofkaan sindigay sidaata id kasto ilaahay gacantiis walaalaha geliyi weyn ku baahina in ummadun gargaarka baahin islaamnimo eelnimo in halka gargaaraan taasoo toona asigaasa jeediyaan iyo cid ku seeytay ha noqoto dawladda ha noqoto cid kasto oo naxariista bini'aadanimada islaamnimada ka dhaahin in ummadun han gargaaraan walaalo shay oo macluusha ku muuqata oo leefiiri korna isku soo danqani oo kale iyona ha ku danqadan aragtida muuqata aragni oo leedo aan korna laakiin qof kasta way waaha qof hadii hadalna qof kale hadala qof ka hadala way waaha la kullu shay sheege qodolina oo kurna arintaasana haasiti yeelna marka deegaanka duunina arintaasana haasita dibkaas jira waan ulaaska sahana fuuli biyo la'aan jirta raashin la'aan jirta xoolaha dhamaadeen meeli yaro oo roob yar ku day oo wali birtiyo maaye biyo bilan lahayna badana jirta marka aan way baahina id kasto oo ku danqadaasa baahida ama maskiinimada ninka bini'aadinka haysata ama gargaar qofka baahaya in oo ilaahay waahid ka yahay ilaahay walaalaha kasii in walaalkaha gurmada iyo codsigaasi una hajeedo ulamadan wax garadkan mas'uuliyiintana intee iska kooyni ujeedaduna kooyni kaasa wadana may fadaanee si degdeg ah oo leeyahay hatta horan wala lensi laakiin wala yiwol hasoodo wala intar korme muskil bariis maskal ruwa bariis oo fadgeegilisi wala intar korme wala wadayna ma ilaahay awooda in may fadaanay gacanay sidan arintaasi tii gargaarka siitu gacan ku jeesitan wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma hada ya askar dhamaanteed codsiban ilaahay waa asana madar nasiib asaga madaaqo وحكوا مدة غمجرا أنت أدان كبحنا أدان كبحنا أواتنا هايس قبل كانوا حكوا لها سد حدود إثيوبيا يكين حدود لي مرة كي يروح كده يجرس سومالي يقول كده أفراد يواجه كي يعمل بحجرة مرة إثيوبيا لا شيء هذا إثيوبيا أربعة كتب يعرض كي أنا أربعة كتب شبان في لا شيء أربعة كتب معناها من السماء علي dadka islaamka oo saanoo ku dhaqanayo oo iimaanka la codso oo waxaan tagay mesela wixii bidaadan ma garanayo oo baano dhaqanayo codso oo waxaan taraa waxtarka maanta u baahan ma aha hada wax soo daahayna ma waxaan ka hadlaynaa dad baaba'ay sida dunyada in laga hortago waxaan ka baaqo direena waddanka maamulada sheeganayo oo anaga ilaahay maamulnaa كل يوم روحي روحي لهي حكمي وين أيها وحنا كنا ما أنت دينا ماموران أو أوتر سنة هاي وتشيلنا بيجوجين ما أنت تبقى ناس أي نقدر يبغى أو نقدر هين كل كنا جالس نسكور رسي هاي أصل وين إلهي والله وقمنا إلهي روح هنسيه بدر هنسيه أوقات هنجاسار أوقات هنجاسار إسلام الله هنقوله سراد المسلمين هنجاسيه أصل جالس إلهي أصلنا بين آدم كنا أنت أصلا كلمة ما درينا فرق أنت أصلا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته